عفي ما درني إشادة متاجنا عدد ونويفتيكو ضرور عمتنو عفي ما درني بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa farxad weyn oo ah inaanu aniga iyo waftiga ila socdaan halkan nimid in si aad iyo aad u weyn naloo soo dhaweeyay oo sharaf iyo qiimo leh. waxaanu la kulanay Grand Prince Sheikh Mohammed bin Zayed waxaanu iyo muxuu ahay madaxdii kale iyo odayaashii kale si aad iyo aad u fiican oo wanaagsan ayaa naloo soo dhaweeyay. waxaanu kala hadalay waxyaabo mashaariic fara badan oo aanu hore uga wada hadalay oo dhinacyo badan leh oo waxtar u leh Somaliland iyo horumarkeeda iyaguna niyad wanaag aad iyo aad u fara badan ayaanu tuseen. waxaanu kaloo ka wada hadalay inay dalka maal gashadaan iyadana niyad wanaag aad iyo aad u fara badan baa ka muuqday. marka saaxiibtinimo labada dal ka dhaxaysa iyo yididiilo wax wada qabsi dhinacyo badan leh iyaguna ay hungureynayaan ama ku tala jiraan ama ay ku rajo weeyeen in dhulkeena maal gashadaan dhulka Soomaaliyeed maal gashadaan annaguna aan ugu soo dhaweynino iyo wixii kale mashaariic ahaa wax horena loogu ballan qaaday iyo wax imika noola ballan qaadayba oo ay ka mid yihiin wadooyin oo ay ka mid yihiin dhinacyo badan oo dhaqaalaha la xiriira horumar dhinacyo badan leh. intaas yaa waxaas yaa maxaan ka wada hadalay si wanaagsan waana lagu soo dhaweeyay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. cusbitaallaa ku jiray wadooyin baa ku jiray muxuu ahay iskuullaa ku jiray dhinacyo fara badan baa leedahay wax qaabsiga wajiyaal fara badan leh oo tafaasiil badan leh baan isla wada galnay. marka niyad wanaag iyo wax wada qabsi iyo soo jeed loo soo jeedo dalkeen Somaliland iyo dalkan joogno wax wada qabsigooda ayaanu ka wada hadalnay. insha Allah ta'ala waxaan ku rajo weynahay in waxaad shaqeeyaan guul aanu ka gaadhno xiriir fiican oo wanaagsan oo dhex maro. murtidiisu waxay ku dhantahay statementkii uu madaxweynuhu bixiyay oo ka turjumaysay nuxurka wada hadalladiina dhex maray waftigii uu madaxweynuhu hogaaminayay iyo madaxda dalkan Imaaraadka Carabta. hase yeeshee waftiga madaxweynuhu iyo anigu aanu maanta kulankan aanu la galay weli axadka ama nin kale dhaxalka madaxtooyada boqortooyada dalkan waxa weeye taariikhi waxa weeye boqosho taariikhiya iyo kulan taariikhiya. arrintaasi waxay ka turjumaysaa sida ay dunidu maanta hadday tahay dunida carabta iyo dunida kaleba sida loo arko qadiyadda Somaliland hadday tahay siyaasi hadday tahay dal ahaanba iyo mid ahaanba qiimaha iyo magaca iyo martabada maanta ay ku leedahay Somaliland dunida carabta iyo dunida ay horta arrintan marka hore ka turjumaysaa. marka labaad wada hadallada sidii madaxweynuhu sheegay arrimihii ugu waaweynaan ka hadalay waxay baahida dalku qabo oo aan u gudbinay xukuumadda iyo boqortooyada dalkan hadday biyo tahay hadday tahay dariiqyo hadday tahay tacliin hadday tahay caafimaad iyo hadday tahay baahida kale guud ahaan mandaqada gobolada dalka oo dhan ka taagan baanu si buuxda uga waranay iyo waxaan uga baahanay inay gacan naga siiyaan. si weyn bayna arrintaa u soo dhaweeyeen. waxaanu dhawaan filaynaa in arrimo xagga farsamada la xiriiro arrintaas in labada geesood ay isdhaafsadaan oo ay dabeeta markaa lagu beysgareeyo iskaashiga hadhowna dhex mari doona. sidii laga warramay shalay waxaanu aragnay oo kale Sheikh Mansuur oo ah ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha dalkan isla markaana wasiirka madaxtooyada kana tirsan qoyska boqortooyada dalkan isagana sidoo kale mashaariic specific oo gaar ah oo horumarka dalka iyo dhaqaalihiisa iyo arrimihiisa kaleba ka turjumayaanu ka wada hadalay. waxaana dib loo qiimeeyay wada kaashigii iyo iskaashigii markii horeba naga dhaxeeyay halkuu imika maraya ayaa dib loo qiimeeyay. arrintani waxay maanta noo furtay dariiq cusub oo dunida carabta ah khaasatan dalkan Imaaraadka Carabta oo wax wada qabsi iyo iskaashi dhinac walba leh oo aan filayno inuu halkan maanta booqashada madaxweynaha kadibna dhex mari doono. arrimaha kalena arrimaha xagga nabadgelyada iyo siyaasadda ee guud ahaan geeska Afrika ka mid ka nahay dal ahaan ay ku saabsanayeen oo madaxweynaha iyo Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ay isweydaarsadeen isku fikirna ka ahayeen arrimaha ka wada hadlayeen. Assalaamu calaykum.
عدا وأولشو